qofkan xiriira leedihiin was jeclaydeen wax walba idin wanaagsanayeen caqabada kaliya ku haysta xay maanta reerkina ku dhaheen no ninkan ama annaga noogo ama isaga ugo sili gabar saaxiib ma noqon kara saaxiibada isugu jiraan the best friend ma noqon karaan maanta kale yani xiriir waxa leedihiin qofkan Soomaali ma aha yani ma sha Allah diin hadii loo islaam way qof islaam diinta ka dhisan qof ma sha Allah qurux badan qof adiga asdii kartay inta rag lagu xulan karo lagu xulan kara dooqaaga wiya laakiin dhibtiis waxay tahay ajnabi way ka ayaan ahaan maanta hadii uu dhoo qofkaas uu guur ku soo bandhigan lahaa ma laga yaabi lahaa qof ajnabi inaad guursatid oo nolol la wadaagsid. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام دمانتين ميل بدرنا كجوكتان وصبر ومن يوتيوب channel كداون إنسان وأيانيتا official وحدنا يسود هذا مرة هذه مرة سدحات ما شاء الله الحمد لله سكون قدنا أكسم ما نكلا قروح بدن ما أنت معاه وحين والله فيديو عصب فيديو جن أنت وجود جن كور هل كان حافظ يسوع منطق وجبات يو مروة ذا مروفوسية على كل حال سود هذا سوجدين بقى ما أنتوا waxaan noola wadaa barnaamij dooda waxaan noo wada Fawziyo soo Fawziyo su'aalana weydiin doonta anaga inteena kalena fikradeena ka dhiiban doona hay mar soo dhaw wado single dhabarka in la karbaxo single ma aan xoogayna si joogaan soo su'aal dhowr ah ku wada saddex su'aal afar su'aal meelahaas okay so insha Allah waxaan rajeyna su'aal walba waxaan rabaa inaad raacsin sabab insha Allah su'aash u horeysa waxay leedahay lacala hadii guur lagu dhaho maanta waxa guur ku soo bandhigtay oo la rabo in lagu guuriyo ama reerka ay ku keeneen laba qof يعني ويل أي شيء هبريرتا أما ويل أي شيء يعني إيددا أما دنك أبها أذيردا أما دنك هو يدا أو هبريرها المعبتة وحيواس كأجباد أهان ما أنت لبضع سقف يعني وقص بنت على مال أول الحنيس ماله يجوز سن لهاد لبضع horta ilaahay nooma kaso aamin laakiin hadii labada mid noqoto wiilka bartay dhashay waa anigu bay la dhashay marka ka eedaday dhashay ama adeerkay dhalay inkastoo su'aal adag ka la xamidna ma dhaha laakiin dhanka naaska waa kan la xalay hooyada dadka aniga dhanka hooyada reer abti ilma abtida iyo dadkaas walaalahay mid la mid yihiin ayada ma tastir walaalahay la mid yihiin laakiin yagan doorka laha okay mandeeq adigana xaleedaa والله horta su'aashaas waa su'aal de wareera labadooda ma fiicnaan ma magaaladeeda kale igu fasaxdiin bayal reerku waxay ku dhaheen mandeeqay karna ujeedaabe waxa lagu dhamaan mandeeqay waa de waxa keeni weeyday in adeerte ama ilma adeerka ama ilma abtiga mid aad والله inkastoo labadooda walaalahayga ay yihiin gurkan wuxuu ku fiican yahay horta qof banaanka kuma fiicnayaan ehelada sida ay tahay de adeerkiga isku dhiglaay dhanka adeerka aad yani soo safani waa iska dhaweeyale ilma adeerada dad daawanaysan mandeeq saf soo gala mandeeq barakallah ayaan adigana hadii lagu dhaho maantay ilma adeerka ama ilma abtiga ama ilma habaryarada labadaas oo ku qasban tahay meel aad ka raacato male walaa horta ani labadooda ma guursaneen wiil adeerkay dhalayna ma guursaneen wiil habartay dhashana ma guursaneen laakiin maadaama qasab ay tahay oo mid ina guursaday tahay waxa guursan lahaa kan adeerkay dhalay sababtoo ah kan habartay dhashay waxa aaminsanay waa isla soo kornay ka ila dhasho kale inuu yahay soo kan adeerkay dhalay guursan lahaa laakiin rumaaya in adeer meesha adiga joog walaalo فوسيا نو باسوس إن أديرده يا أنا وإذا كان حبحد لو إذا كان رأينا وقاب إن أديرده جانس إنه هلي كرادين إن أدير يا السدو ما دام المهبريض جانس هلبا الأديرده أتلس جانس هلا حق وضع سوس أشلا واحد لما دام كرفونك أديك هاي 6 أيام سؤال بدل عن سنة كهوري أد بالوغة طوضي سنة والبون قفك حوغا قرادي رأي وأكوردا وسيوينا ذا دود هذا ما أنتو إيجنا أمر إيجا ما أنت كقبتو سؤال حل هذا هاي ويلي جبر صاحب من نقول كرا صاحب بدو سجون شران the best friend من نقول كرا جوابته ضدها ريزون راعي ده ما يتهانه ريزون نراعي اوكي ما بري هور مس هذا أنا شوفنا 2024 بري هور horta waxa aaminsanaa jirwiilka wareyna saaxiib waa ko dood badan aan xijin jirtay waa yeah
laakiin maadaama mar walbo sanad walbo oo qofka cimri uu kordhayo daa uu kordhayo caqli uu kordhayo waxyaabo fara badan uu la kulmaayo waxyaabo uusan weligiis la kulmin inuu sanad ka dambe inuu la kulmo ama maalmo kadib aa laga yaabaa berigii hore waa aaminsanaa jira laakiin hadda waxaa aaminsanahay wiil iyo gabar best friend ma noqon karaan asxaabha laakiin best friend ma noqon karaan okay maxaa ku sababeyn kartaa sababta waxay tahay gabadha waa laga yaabaa inay best friend u aragto wiil walaalkeed oo kaleenta laakiin wiil markuu gabar saaxiib ka dhiganayo waliba best friend laba arin buu ugu dhiganayaa midda koowaad oo ah arin wanaagsan oo dhanka xiriirka inuu gabadha mustaqbal uu ka leeyahay uu gabadhan jeclaaday uu rabo inuu guursado san labaad oo ah inuu ka leeyahay arimo gaar ah siga ah soo badanaana wiilasheena wiilasha badana gabar iyo wiil markay saaxiib noqdaan gabadha waxaa laga yaabaa inay wiilku u naxariisato inay waxyaabo fara badan ee nafteeda u sameeyaan xataa u sameeyso like sababtana waxay tahay walaaltinimo iyo saaxiibtinimo iyadoo eegayso laakiin wiilka markii asxaan loo sameeyo ama gabadha waxyaabo fara badan ay u sameeyso isla daqiiqadii wuxuu iska dhaadhicinayaa inay gabadha jeceshahay damac baa galaya soo si qaldan ha u fikiro sometimes wuxuu u fikiraan si wanaagsan maadaama gabadhan gabar wanaagsan ay tahay ka fikirayso waxyaabo fara badan ay ku qabanayso soo way ku wanaagsan tahay nolosha gabadha in la wadaagto oo xaas ka dhigato sometimes stupidnimo ay ka tahay so absolutely gabar iyo wiil ma noqon karaan best friend صح ما عندك صح فوزية horta su'aalahaaga caawo waa de horta wax muhiim ah oo u baahan in laga hadlo aniga kama dhigan lahayn best friend wiil kama dhigateen maxaa ku sababeen maxaa ku jiita maandeeq ahaan walaahi igama ahan waxyaalo kale waayo wiilasha aniga haddaan ahay dumar wiilashina mar walba waxaan jecelnahay saaxiib aan ka dhigano waayo dumarka waxaan ka aaminsanahay waxyaalo kale oo yacni xumaan iyo adiga waa iska dareemi kartaa dumar tahay waayo wiilashaan aniga aan ka dhigana yacni badanaan saaxiib walow aniga hadda asxaabadeeda kulli wiilal ay yihiin balse waxaa jirto kama dhigan lahayn markaa ku dhahayo adigoo saas oo u ixtiraamaysid oo dadka soo dhageysanaysid oo dee wax walba ka dhiganaysid ayaa ayaga si qalad wax ay u fahmayaan ama qalad ay ka fikirayaan ama inaad ayaga raadinaysid wadada u taagan tahay oo mustaqbal ama waxyaalahaas iyo adiga aad u dhimanaysid ay u qaadanayaan yani aad waxa leedahay wiilku marnaba saaxiib ma aaminsana damaca ku jira ma aaminsan sidoo kale ana gabdhaha ku raacsanahay fikradaas oo waxa leeyahay min albidaaya fitra ahaanba yani wax macquul ma in rag iyo dumar ay saaxiib isku dhow ee noqdaan waxa diiday soo jeeda waxa fikrada maxaa soo beenaysaa gubad maanta muxuu ahaay marka antaal ahaan oo kale waxa aaminsanahay okay dad asxaab kolba waa yeelanaysa kolba kida wiilal asxaab dad isla shaqeysaan mise dad wax isla barateen way jirayaan laakiin waxa qurux badan in xiriir kasta xuduudiisa uu lahaado hadaa qofka isla shaqeysaan shaqada ku ekaada dad wax isla baranaysa waxbarashada ku ekaataan waxbarashada iska caawisaan laakiin in la isku dheeraado ayaa khaladka keenaysa damac iyo dhibaatada waxa u sababeyn kartaa oo dhigi kartaa ولا أنا ويلش يقولها أنا من خلت كأنا سارين وحأمسنها يعني أبورتان كإلهي كجرتا سو دلوا نقف ولا بقف ولا بدي تنسي كسو كذا شيء ما بنقون كرانت صاحب دينيا بقول حق سيد إلهي فدرة ضدك وأبورسا أمسنها لكن إن لو وضع شقيو بس وحلا وضع برتو هذا ندتك حاجة أي معرفة صارن تيم للنقضاء كله لو وضع شقيو عادية iyadoo aan xuduud kiir la soo dhaafay ixtiraamka iyo walaaltinimada okay inta ugu gudbina su'aalihin ra'yiga idinka ra'yiga noogu soo jawaaba wiilii gabar saaxiib ma noqon karaan best friend ba ka hadlana saaxiibada isugu ma jira best friend ma noqon karaan isku dhow oo wax kasta best friend marka leena de wax walba la wadaagayaa way sheekada ma noqon karaan gabadhan horta markay best friend wiilka la noqonayso de gabdhuhu waa isa siyaan ma ogtahay naag waxa la nimay taqaan nima moodo oo markay wiilasha bartaan waxay isdhahaanba wiilka manin baaba warweyn caadi walaalkay hooyadii dhashay oo kale waay hadeer wali weeyeen marka waxa nin ma ark bay dhahaan soo adiga ra'yigaad noo sheegshaa su'aashan maadaama mikrofoonka istaadan ku bilaabaya maanta kale mesela waxa lagu dhareerkaaga waxay ku dhaheen wiil bas jeceshiin oo wada socotaan oo guur baa idin soo dhamaaday reerkii waa u keentay
reerka marka u keenta reerka waxay ku dhaheen annaga reerkan bataatan ba ugu baaday kulama rabna wiilkan inaad guursatid adna wiilka dee wax walba waa isla soo fahamteen oo ugu yaraan adu 2 sano 3 sano la socoteen oo de meesha u dambeysay idinka maraysaayo de guurba isla soo istaagteen reerkina waxay taagan yihiin annaga walaale ama wiilkaa ugo ama annaga noogo wiilkaas nama soo galo gubad ahaan maxaa sameyn lahayd horta waa wax dhaca oo maaragtay hadii aniga igu dhicin dad kala badan ku dhaceen jiraya sababtaan horta fiirin lahaa maxaa reerkaygu talaan wiilkan ku diidayaan horta sug afeefto markasta faamilkayga aan cidaa ku doorsanayo ma jirto wax kasta faamilkayga uga tagaya xataa nafteyda marka laakiin waxa isku day lahaa in xal dhexdhexaad raadiyo marka xaqiiqada ka hadlo waxa lagu diidaya horta inta badan waalidku waxa ay arkaan waxba ka jira marka qof waalidku ku dhaho qofkaas jooji iska dhaaf waalidka marna dhibaato kulama raban baan aaminsanahay marna waalidka wax xun kulama doonayaan soo sabab xikmad baa ka dambaysa sababta raadin lahaa haday salahan sabab meynarayeen sida reerku ku soo jeedo kale tii waxyaabo noocaas macna sameeyeen lacag ma haysto waxyaabaas oo kale waxa isku day lahaa in xal raadiyo laakiin hada xal waayo faamilkayga dabcan min xal ma jiro meeshaas waxa la joogaa last pointiga bas faamilkayga oo waan joojinaa ka dhaqaajin soo waa ka tagi lahaa war ma lahan lan faamilka meel u dhaafo ma jirto okay haye mandeeqadna qofkan xiriira leedihiin was jeclaydeen waxba idin wanaagsanayeen caqabada kaliya ku haysta xay maanta reerkina ku dhaheen no ninkan ama annaga noogo ama isaga ugo samxa sameyn leed ka mandeeq ahaan adig wallahi horta walaashayda way hadashay su'aalaas inkastoo ay la adag yihiin oo de qof walbaba familkiisa wuxuu ku dooranaa waxaaga fiican malahan sax qofkaas hada isjecelnahay dhimanaya xataa dartiisa waayo familkayga hadoo qalad leen xataa ma soo gala qofkan maribni Soomaan waayo aniga familkayga la jooglaa waxaan sababtan waxay tahay waxaan nin waaye adikoo isjecel adoo raacday oo familkaaga aaga gooday oo bari ku xumeyn karaa ku dhaawaci karaa qofkan dawaas wuxuu la'aanta kama ahaan karo wallahi la'aanta daada way ugu diroosaa dadkii wallaahi aniga waalidkayga waxaan hadoo wada ku soo jiro xataa waa u sii digaa waalidkayga haduu diido oo iga dhinta daaw dhimanay xataa aniga lamidaan ay Soomaan sababtan waa waalidka aad u dooran dadka ku xumeena dad familkooda ka soo gaay way jirtaa nin soo raacay qoxumaan meel laakiin fikradooda ay galaknaan fikradeeda familkayga waxaan ku doorsanayaa malahan okay ayaan adigana maxaa dhaysa horta arin adag waaye qof is jeceshihiin xataa hada anteeda ka tanaasulo qofka bini'aadanka waqti uu ku galiyay xaq uu ku leeyahay xaq la isku leeyahay xataa dariskaaga xaq u leh qof xiriir soo wada wadaagteen oo waqti ka soo dhumsa laga yaabo soo horta familygayga weydiin lahaa marka hore hadee jirto sabab oo waxyaabo aanan micno lahayn horta number 1 marka qof xiriir la sameeynayso waxa wanaagsanba tala ahaan baa waxa dadku u siinaya marka hore bayna waalidka barto si hadhow aysan u imaaninbo arimaha noocaas oo kale sababtoo xiriir 2 sano 3 sano soo socdo waalidka ogaa markay guur noqoto ma jiri karto sabab ay ku diidi karaan because qofkan hore loo baray inkastoo ay dhici karto iyadoo xataa saas ay tahay maanta waxyaabo fara badan oo dhalinyaro markaan ahay aanan arkeenna laga yaabo ama qofka aan jecelnahay si kasto uu xun yahay xumaantiisa ma arkeeno waxa laga yaabaa maanta ana qofka jecelahay xumaantiisa in arkeen bis maan deeqo ii dhow qofkaas xumaantiisa ay arkeyso absolutely qofka liiga diga aan ma jecelibo xataa duu qof saaxiib iiga digo qof kale inta duu iiga diga xataa qofkaas waxa isku dayaa in baaritaan ku sameeyo qofka kale oo Facebook ka fikiraya banaanka qofkan banaanka ka jooga laakiin ani xumaantiisa ma arkay mar walba qofkan waa jecelahay xumaantiisa ma arkay laakiin maanta ugbadada ay imaado ay ugu dhahdo qofkaas xumaantaas uu leeyahay ma ku beeninayo waa raadinaya hadii hadii xumaantaas xataa wax soo dhaweeyaa u arko because waxyaabaha aanan arkeenin ka badan ay ayadana arkeenin soo waalidkay cid ku doorsan waalidka aad u gooy lahayd absolutely waalidkay okay su'aasheen u dambaysto waxay tahay taas guurka ku guda jirnaa maanta kale midalan isla taas u guda galno maanta kale yani xiriir waxa leeyihiin qofkan Soomaali ma aha ajnabi waaye
xiriir saa u lahaydeen dee ama xiriir ma bilihdiin oo asaa ku jeclaaday laakiin qofkan waa 10 of 10 yani ma sha Allah diin hadii loo islaam way qof islaam diinta ka dhisan qof ma sha Allah qurux badan qof adiga asdii karto dee inta rag lagu xulan karo lagu xulan karaa dooqaaga wiya laakiin dhibtiis waxay tahay ajnabi way ka ayaan ahaan maanta hadii uu dhoo qofkaas uu guur ku soo bandhigan lahaa ma laga yaabi lahaa qof ajnabi inaad guursatid oo nolol la wadaagsid wallaahi horta shukaansi mas guur sheekada shukaansi markay ka soo tagtay ee guur joogto sheekada guur markay joogto faarax waa janno ku sug ma sha Allah faarax waa la daaweeyay guurka iyo xulashadiisa markay joogto faarax baa ku heystaa micnaheedu ma ahan ina cunsuri ahay ama ajaanibta diidaayo waxa jira gabdho badan oo ajaanib guursaday fikirkooda waa ku ixtiraamaya sababtoo ah qof walba meesha u wanaagsan asaa ka saayo laakiin anika ayaan ahaan waxaa doonayaa ani dun inaa guursado dun waxaa ka wadaa yacni ilmaha dhali doono ninkaa guursanayo ilmaha dhali doono waxaa rabaa in ilmo ay noqdaan isku dhaqan aan nahay isku luuqadna aan nahay waxaa taqaanid si anaga yacni haddii ilmihii kale luuqad aan naqano oo aabihina luuqad gooniyu ku hadlayo hooyadina luuqad gooniyu ku hadlayso ilmahaas way adkaanayaan labada dhaqanba inay la qabsadaan dhaqankii reerka aabihina wuu kasoo tagayaa kii hooyadiina wuu ka tagaya soo midda kale inta waxay tahay qofka bini'aadanka waa kala tagi kartiin ma jirto laba qofood oo dun iskugu xiran soo qofka Soomaaliga markaa kala tagtiin si kastuu u xun yahay si kastuu familigiisa ay ku xumeeyaan hadana 20 sano hadii ka soo wareegto waxa laga yaabaa maanta adoo kala ay taqaanid wiil aan dhalo kala meel ku aragtay waxa dhaysaa hooyada bari baa meel isla joogi jirno waa in hebel oo reer hebel ay ka soo jeedaan soo raadiya laga yaabaa Soomaalida hadana hadii la raadiyo waxay noqdaan ilmo adeera ama ilmo aan wax laga yaabaa dhanka ayeeyada shan tobnaadiyo in iska soo gashaan Soomaalida markii abtirsadaan wax badan la abtirsado waxa la noqdaa dad walaalo ah oo deegaana laakiin hada nin ajnabi guursado waxa laga yaabaa in la dhaho hooyada waa Afrikaan meel uu raadiyo garan ma Soomaali hatta lama dhahay hatta di Soomaali waa la Soomaali meel uu bas Soomaali way kugu filan halka soo adiga diido waxa dhilaa nabi absolutely aniga guurka iyo xulashadiisa markay joogto faarax baa guursan lahaa okay hay maandeeq adigana maanta wiil ajnabi guur ku soo bandhigtay wuxuu ku dhahay kaayl walaalahay oo ku jeclahay يعني ماشي دنبسي كتاغنتا تنفتن واي قفكا دين ما شاء الله ولسان نبتي سكلي وحبا أجنبي قفكا سوكا كمان داق أهان قف أجنبي نلاش ولا ولاق لهيد نكورسر لهيد ما هي لما ولاق لهيد دقاق معها وايو horta calafka day oo jira adoo ku tashaneen inaad haween ku fikirin aad calafkaaga oo noqon karaa sax laakiin aniga kuma fikirin ba waayo wax farax Soomaali wax ii dhaamo ama wax ii bedelayo malahan hadaan isdilno waa isla aniga waan isxali karnaa way isafahmeena laakiin aniga aan ajaanib markaan raaco oo aniga maanta walaalkayga ka tago inta qol igeesto day iga carari kara inteen aada ma aqooni Soomaan hadana meelo bigeeb big ii xawado ii beeno ii sheego igi tagi marka aniga waxaan taaganahay faarax Soomaali is not easy waxaan dhalaa saan u dhalaa kun xataa iyo iga bixinin صح ما شاء الله marka wacdi aad waan daaq hay ogbaad adna fuusi aan real life ku dhacday hada arinta ka sheekeynaysa qof ajaanib inuu tahay soo propose garay aad iyo aad marka anigu de way aragtaan single baan hada ka ahay sababta aan ku diidayna waa isla abaayoyn fikradii ka soo hadleen iyo caqabado tiro badan oo kala imaan kara qofku markuu qof ajaanib uu yahay aydan isku luuqad ahayn aydan isku dhaqan ahayn asaga xataa hadii mushkilad ka soo gaaro wax laga yaabo familkiisa mushkilad ka soo gaarto in dadkii kala isfahmo weydaan in hadana meesha soo galooto inta badan maadaama aan gabar ahay aniga la iguursanay aniga ninka meesha aadaay moogta ma fahamtay marka maya ma yeeli lahayn sababaha ayaana sheegtay sababaha raacinayana waa inta hadda sheegay marka ninka Soomaaliga oo aan saf garanayno
oo de haddaan isku dhacna inta isla fariisana isla jarjaran karno min adeeradiisa ama ilma walaalihiis la raadin karo haddii isagii wax laga afahmi waayna dee reer loo raacay meel loo raacale laakiin qofka dadka inkastoo dadka ajaanibka ah markii la guursadada ilmayaal qurqurux badan dhalo waa aragtay ilmayaasha midka ayaa qurxan kaliya kiidka ilmaha kiida fiir Turkiga ani kuna jir Turkiga waxay dhigi jireen Allah way jecelin dadka Afrikaanka qaar kood guursadaan salaam Soomaalida kale Allah waan ka helnaa kalarkiino kale to diyaar ma u tahay in Turkiga guursatid anu su'aasha soo xukun maxaa gabdhaha Soomaalida ku jeceshin waxay dhaheen waxaan jecelahay markaa mixed ka ilmaha soo bixi doona sida qurux badan yahay soo noqonayo soo waxyaabaha dhow inta ka fikir leedahay waxyaabaha dheer inta ka fikirtaa soo fikirkeen anaga maanta kuma gunla yacni ama kuma qotoma inaan dhahayno gabar kasto iyo ajnabi guurso qof walba dooq uu leeyahay qof walba noloshiisa isaga xor u ah meeshuu rabo waxa arki kartaa gabdho faarax Soomaali uga fiicnaaday ajnabiga gabdho badan qurux badan ku nool oo ku degay oo quruxdooda noloshooda ma sha Allah u tahay perfect u tahay Ilaahay idin barakay nin walba calafkiisa yani meeshuu Ilaahay ku qoro ka cunay sama soo ra'yigaaga waxay tahay adiga rabitaankaaga ma rabtaa yani way qofkan ma raba isaga ku jira dareen ah inuu qof ajnabi nolosha la wadaago qofka waxa ka horeey intuusan guursan in rabitaan ku jiro rabitaankaas ma kugu jira maadaama gabdhahan ay hadda single yihiin ay qorshe ku jiraan in ajaanib bedela oo soo baxo oo ka wanaagsanaado okay waad arki doonaa maalinta guurkiina forever إن شاء الله. محمين يعني كبدها ولا لي هذا حاجة تطلع عيال وضلي وتكده هي المها ورت ما شاء الله المقروح بدن هذيك دبتها الناس صارت تعرف ننعد وهن ننعد لكن ما وحن قادنا مت أنا جو كلا مت أبيس مت أيديس وبعدين حي yes so far is forever days إن شاء الله so ما ضد دينا ما سالس بدرسي إن أنت تكسو قبلنا إن شاء الله نحرجينا دكيشان سبدرسي سؤالها كان أماسانو كلا لو فريستو قبلها سوشيال إن شاء الله بارتي وكلا so قفت شنال كلا زوحرس إن شاء الله هي أيام حريص الله مسكها إن شاء الله بلينا نكوسي ومرينا حكولنا هاي thank you أفر بقول وبعد رجعنا فيديو مركز سوقنا أفر بقول وين عادي so إن شاء الله مسؤولية بقصيفوش أفر بقول وكن أخف وحرن يوتيوب اللي بملك لباها مسؤولية وإن شاء الله أنا جنوا كاس دو السعودات دي لا يراهتو دال بيوبا أنت وحول بدلو دالو ولا جارة إن شاء الله وملينا كورجينا دي لا يراهتو سو كله thank you so أنت كسوق جوينا ما تبرامج كنا ذاك الشيء لايكتا كومنتيجا شيرتا يفكر هكي لا إن شاء الله وحنا كي تقدرنا في أمان الله رمضان مبارك